dagaalada waa ay dhammaan doonaan, hogaamiyaasha dagaaladana waa ay heshii doonaan sidoo kale wadamada, laakiin qalbiga hooyada ee jabay waxa uu sii ahaan doonaa sidiisa. wiilkeeda dagaalka ku dhintayna ma u soo laaban doono. filimkeena maanta waxa uu ka bilaabanayaa buuraha Virginia ee ku yaala wadanka Mareykanka. Dismal iyo walaalkiisa Hale waxa ay ku ciyaarayeen buuraha dhexdooda waa ayna tartamayeen. isla waqtigaasna aabuhu Thomas waxa uu joogay qabriga, waxa uuna soo booqday asxaabtiisa oo ku dhintay dagaalkii adduunka. asagana waxa uu ahaa mid ka mid ah geesiyaasha dagaalka. marka uu guriga imaado waxa uu arkayaa Dismal iyo walaalkiisa oo isdagaalayo, asagana waaba asagoo arkin xataa waxa uu ku dhiirgelinaa inay isdagaalaan. hooyadood ayaa soo baxayso, ayadana waxa ay ku dhaysaa joojiyada dagaalka, laakiin Dismal waxa uu soo qaadanaya dhagax, walaalkiis ayuu madaxa kaga dhufanaya, asagana waa uu dhacayaa. kadibna hooyada iyo aabaha ayaa u soo kala cararayaan, waa ayna qaadayaan asaga. qolka ay geynayaan waxa ayna ka joojinayaan dhiigga, halka Dismalna uu aamini laayahay inuu walaalkiis waxaas ku sameeyay, waa uu nacabsanaya. kadibna Dismal aabiis waxa uu sameeyaa waxa ay sameeyaan aabayaasha oo dhan, yacni waxa uu rabaa Dismal inuu ku qaraaco suun. halka Dismal inta la qaraacin waxa uu darbiga ku arkayaa sawir, waana sawirka todobada dambi ee adduunka ugu weyn oo kamid yahay dilka. sawirkan waxa uu ka tarjumayaa dilkii ugu horeeyay ee adduunka ka dhacay, waana Qaabiil iyo Haabiil. Qaabiilna waxa uu dilay walaalkiisa Haabiil. Dismal hooyadiis ayaa soo gelaysa, waxa ayna ku dhahaysaa aabihiisa garaacida wixii dhacay ma soo celinayso ee ka leex wiilkeena. kadibna ayada wiilkeeda waxa ay ku dhahaysaa dilka waxa uu kamid yahay dambiyada ugu waaweyn ee bani aadamka sameeyaan, marka adiga ii ballanqaad inaadan hub damba qaadeenin. habeenkana Dismal waxa uu maqlayaa aabihiis oo qaraacaya hooyadiisa sida caadada ahayd, asagoo xanaaqsan ayuu jiifanayaa. subaxdiina hooyadiis waxa uu ku dhahayaa aabeen anaga muxuu noo neceb yahay, had iyo jeerna si fiican oo lama dhaqma anaka. waxay ku dhahaysaa aabaha aad ayuu u fiicnaa jiray, anigana waa jeclaay. waxa uu ahay wiil qurxoon oo dabeecad fiican, laakiin dagaalka ayaa bedelay asaga, mana ahana qofkii aan guursaday, laakiin saas tahay waa jeclahay, waa uu sabraa. sanado badan kadib Dismal waa uu weynaaday, waxa uuna noqday wiil dhalinyaro ah. maalin waxa uu aragay gaari shil galay oo nin hoostiisa yaalo, ninkana waa uu dhiig baxay, waxa uu damcay inuu caawiyo ninka, dhiigga ayuu ka joojiyay, waxa uuna u qaaday isbitaalka. markii uu dhakhtarka arko sida uu u xiray dhaawaca, waxa uu ku dhahayaa ninkan waxaa ka badbaadisay dhimashada. kadibna Dismal waxa uu dhex maraya isbitaalka, waxa uu arkayaa kalkaalisooyinka oo caawinaya bukaanada, asagana waa uu ku farxayaa midaas, maxaa yeelay asaga waxa uu jecel yahay inuu noqdo dhakhtar oo caawiyana dadka. kadibna waxa uu arkayaa kalkaaliso qurux badan oo la dhaho Dorothy, ishiisana daymadeeda waa ay ka leexan weyhe. ayada ayuu aadayaa si uu ula hadlo, ayadana waxa ay ku dhahaysaa meeshan waaye meesha dhiigga lagu shubo, asagana haye ayuu ku dhahayaa meeshan waxa u imaad inaa dhiig shubo. cambaar ayuu fiirinaya, waxa uuna arkayaa inay wadato buug ka hadlaya shimbiraha. calaaduulna waxa uu ogaanaya inay jeceshahay xayawaanaadka, waxa uuna ku dhahaya aniga waxaan jecelahay inaan noqdo dhakhtar, xataa dhakhtarka xoolaha, laakiin waxbarashadii igu caawi lahayd midaas aniga ma dhigan. maalinkii xigay waa uu libisanaya, waxa uuna ka soo baxayaa guriga. hooyadiis waxa ay ku dhahaysaa intay aadaysaa, asagana waxa uu dhahaya waxaan aadayaa gabar aad u qurxoon. kadibna cidiis ayuu macsalaameynaya, waa uuna ka tegayaa. asagoo wadada kusii jiro waxa uu arkayaa baalka shimbirta, hore ayuu usii qaadanaya baalka, maxaa yeelay waa uu qurxoon yahay, ayada ayuuna hadiyad ugu dhigi rabaa. markii uu ayada isbitaalka ugu tago waxa ay ku dhahaysaa adiga maanta maxaa soo doontay, waxa uu ku dhahaya aniga maanta waxa u imaada sidoo kale inaa dhiig shubo. asaga ayay ku qoslaysaa, waxa ayna ku dhahaysaa shalay ayaa dhiig shubtay, marka waa inay kasoo wareegataa 3 bilood. ugu dambeyntiina waxa uu ku dhahaya aniga waa kaa helay adiga, marka waxaa rabaa inaan kulanno, ama haddii kale waxaa iisoo celinaysaa dhiiggayga ay iga shubtay. ayadan intay qosasho ayaa waxay dhahaysaa dhib malaha, midaas waxaa ku kulmaynaa beri shaleemada. markii ay shaleemada iskugu imaadaan waxa uu weydiinayaa su'aalo caafimaad ah, ayadana waxay ku dhahaysaa adiga waxaa u baahan tahay inaad baratid sida gabar loo shukaansado, ee uma baahnid caafimaad, haddii aa u baahan tahayna waxaa ku keenaa buug ee akhriso. asagana wuxuu ku dhahaa hagaag dhib malaha ii keen. kadib markii uu guriga tago waxa uu arkayaa aabiis oo rabo inuu dilo hooyadiisa, asagana aabiis ayuu biskoolada kula dhegaya, ugu dambeyntiina waa uu ka qaadanaya. kadibna aabiis ayuu biskoolada ku qabanaya, odaygana waa uu niyadjaba, waxa uuna fadhiisanaya dhulka, maxaa yeelay asaga hadeertaan ayuu miirkiisa soo laabtay, ma yaqaanana waxa uu u sameeyey waxaas oo dhan. kadibna Dismal aabiis waxa uu ka saxiixaa inuusan mar dambe hub qaadin, hooyadiisana gacan saarin. maalin maalmaha ka mid ah ayagoo wada qadinaya waxaa soo galaya walaalkiis Hale oo wato dharka askarta, waxa uu dhahaya aniga waxaa ku biiray askarta. aabiis waa uu xanaaqaya, maxaa yeelay waxa uu hore u ahay askari, waxa uuna ku dhahaya wiilkiisa Hale horteeda ka tag asaga oo ilmeenayo, maxaa yeelay waxa uu og yahay in dagaalka uu ka dhigayo qofka qof kale. adiga waxaad dilaysaa dad, ayakana waxa ay kaa dilayaan asxaabtaada iyo dadka aad jeceshahay. kadibna Dismal waxa uu aadayaa saaxiibadiisa, waxa uuna ku dhahaya aniga waxaa rabaa inaan ku biiro askarta, anigana dagaal ma gelayo, laakiin waxaa la shaqeynaya dhaqaatiirta iyo ambalasta. ayadana waxa ay ku dhahaysaa ii ballanqaad inaa iisoo laaban doontid. kadibna waxay ku dhahaysaa walba aa isguursano intaa bixin, waxa uu ku dhahaya diyaar mu tahay inaa isguursano, ayadana waxa ay dhahaysaa haa dabcan. kadibna aabiis ayuu tagaya, waxa uuna ku dhahaya anigana waxaa rabaa sidoo kale inaan ku biiro askarta oo caawiyana asxaabteeda. asagana imaqal wiilkayga, ma waxaa rabtaa inaad kusoo biirtid khabriyadan, waxaa ku jiro asxaabteeda hadeertaan. kadibna asagana waxa uu ku biiraya ciidamada, waxa uuna sagootinaya saaxiibadiisa. ayadana waxay ku dhahaysaa waqtiga fasaxa soo laa waa isguursanaynaa, sawirkeeda ayayna hadiyad ahaan u siinaysaa. markii uu gaaro xerada tababarka waxa uu la kulmaya raqiib Hawl oo ah madaxa tababarka, waxa uuna ku dhahayaa tababarka isku diyaari beri. subaxdii xigtayna waxa uu bilowday asaga tababarka. intuu tababarka socday waxa ay orod isku baxeen askari la dhaho Samiti, ugu dambeyntiina asaga waa uu ka orod badiyay Samiti. kadibna waxa la gaaraya waqtigii ay baran lahaayeen sida xabada loo rido. askartii oo dhanna waxa ay qaateen qoryaha, marka laga reebo Dismal oo balan ka qaaday naftiisa inuusan qori dambe qaadin weligiis.
macalinkiisa ayaa waxa uu ku dhahay maxaa qori u qaadan la adawaryaa. waxa uu ku dhahayaa aniga meeshan waxa uu imaaday inaad dadka badbaadiyo ma ahan inaad dagaalamo. kadibna asaga waxa uu ku dhahayaa xafiiska hogaamiyaha noogu imaaw. hogaamiyaha ayuu u tagayaa waxa uuna ku dhahayaa isla hadalkii. waxa uuna ku dhahayaa asagana waa waalatay, ma waxaa rabtaa inaad daawooyin bis qaadid oo dagaalka dhex martid. dhakhtar cilmi nafsi ayaa ku raadinaya si uu ogaado inaad waalan tahay iyo in kale. haddii aan ogaado inaad waalan tahay ama aad jiran tahay meeshan waa kaa racdeena. kadibna tababarka ayuu kusoo laabanaya. ninkii tababaraya ayaa waxa uu dhahayaa dhalinyaro imaqla, ninkii dhaawac soo gaara ninkan yuu ka dalbanin caawimaad maxaa yeele waa fulay aan qabsan karin qoriga xataa faa'iido ma lahan. habeenkiina asagoo murugaysan waxa uu soo baxsanaya sawirka saaxiibadiisa. kadibna Samiita ayaa ka dafaya waxa uuna ku dhahayaa gabartan saan u qurxoon miya adiga ku guursanayso. asagana waxa uu ku dhahayaa sawirka ii soo celi aniga maraba dhibaato. Samiitana sawirka dhulka ayuu ku tuuraya ayaka dhanna waa ay qoslayaan. subaxdiina dhakhtarka ayuu la kulmaya waxa uuna ku dhahayaa aniga ma waalni, meeshaana waxa uu imaaday inaa badbaadiyo askarta mana rab inaa qaato qoray oo qof dilo. kadibna dhakhtarka cilmi nafsiga waxa uu tagayaa hogaamiyaha waxa uuna ku dhahayaa Desmond caafimaadkiisa waa taam, mana awoodid inaa ka saartid ciidamada ee ka leexo. kadibna hogaamiyaha tababaraha ayuu tagayaa waxa uuna ku dhahayaa ninkaas si fiican u dhib ilaa meeshan howsheed uu naco oo ka tago maxaa yeele anaka ma awoodno inaa racdeeno. tababarahana hadalka maamulaha ayuu yeelay waxa uuna ku shaqeeyay Desmond xataa musqulaha iyo dharka ayuu ku dhaqay. askartii asaga la jirtayna waxa uu ku ciqaabay orod si asaga ay ugu takhalusaan. markii habeenkii la gaaray waa ay qabteen waa ay qaraaceen ilaa markii dambe ay ka daalin waa ay ka leexdeen. subaxdiina waxaa imaanaya taliya howl waxa uu arkayaa sariirtiisa oo dhiig ah, wejigiisana waxa uu noqday sida maabka oo kale sida loo garaacayay. waxa uu ku dhahayaa meesha iskaga tag. Desmondna waxa uu ugu jawaabayaa aniga meeshan waxa uu imaaday inaa badbaadiyo askarta. kadibna asaga waxa uu ku dhahayaa saan yaa ku galay aan ciqaabe. asagana waxa uu ku dhahayaa aniga meel ayaa kasoo dhacay wax kale ma jiraan. askartii meesha joogtay oo dhan waxa ay ka yaabayaan naxariistiisa xataa marabi inuu ka aarsado dadkii sidaan u galay. sidii u socday waqtiga waxaa la gaaraya waqtiga fasaxa. asagana maadaama uu dhammaysanin tababarka qoriga mala fasaxaayo. taliyahan ugu dambeyntii waxa uu ku dhahayaa xataa qoriga qabso waa ku fasaxa. asagana waa uu diidaya sidaas ayuuna ku jebiyey amarka taliyaha waana la xirayaa. isla waqtigaasna waxaa sugaysay saaxiibadiisa. waxaa la gaaray waqtiga arooska. markii aragtay inuusan imaahayn arooska waa ay ka xanaaqday asaga. xogaa kadib hogaamiyaha ayaa u imaanaya waxa uuna ku dhahayaa waxaa raba inaad saaxiibka ku qancisid inuu qoriga qaado. kadibna hogaamiyaha waxa uu imaanaya asaga waxa uu ku dhahayaa hal mar qoriga iska qaad haddii kale waa lagu xirayaa gurigaaga ma aadaysid. markii uu ku qanci waayo waxa uu soo gelinayaa saaxiibadiis ayada ayaana ku qancinayso. intaas kadib ayada waxa ay wacaysaa ciddiisa waxa ayna ku dhahaysaa wiilkiina dagaal maraba ee meeshan ka saara maxaa yeele asaga haddii uu qaadi waayo qoriga waa ay xirayaan asagana marbi inuu qaado. aabiisna markuu hadalkaas maqlo waxa uu soo gashanaya dharkiisii hore caladuulna waxa uu soo aadayaa generaalkii ee dagaalka isla geli jireen. isla waqtigaasna wiilkiisa waxa uu saarnay maxkamadda intuusan qaadiga ku xukminin xabsi. waxaa soo galaya aabihiisa. generaalka ayaa waxa uu usoo qoray waraaqad cafis ah waxa uuna siinaya xaakimka. waraaqadan waxaa ku qoran inuu yahay asaga dhakhtar bis asagana uu mas-uul ka yahay inuu ilaaliyo naftiisa. qaadigana midaas waa uu aqbalaya asagana waa uu farxaya Desmond. aabiis ayuu raadinaya markii uu maxkamadda kasoo baxo laakiin waa uu weynaya. kadibna caladuul waxay aadayaan dagaalka. waxa uuna jidka kusii arkayaa meydadka ciidamadooda Mareykanka ah. markii ay tagaan meeshay u socdeen waxa uu arkayaa laba kale oo dhaqaatiir ah ayakana waa ay la yaabayaan markay arkaan inuusan wadan hub. waxayna ku dhahayaan koofidaada calaamad caafimaadka ka fiiq maxaa yeele shiineeska waxa ay gaar u ugaarsanayaan qolada caafimaadka. dhaqaatiir badan oo ila shaqaynaysana waa ay dileen. isla waqtigaasna diyaaradaha waxa ay duqeynayeen buurta Haskow si ay u dhintaan ciidamada shiineeska ee saaran ciidamadoodana ay u fududeeyaan howlgalka. ciidamadan markii ay meesha galaan waxaa bilaabanaya dagaal aad u daran. askar badan ayaa hal mar laga dilay. shiineeskana waxa ay dagaalamayaan ayaka oo dhufays ku jirin. Samiitan waxa uu aragay mid dhaawac ah waxa uuna ka dhigtay dhufays. bamba ayaa lagu soo tuuraya. Samiitan waxa uu ku dhumanaya meel. mid ayaa gadaashiis ka imaanaya asagoo ogeyn waxaana badbaadinayo Desmond. asagana waa uu ku farxaya inuu badbaadiyo asagoo ah bilaa hub. kadibna Desmond waxa uu arkaya mid dhaawac ah oo lugaha ay ka goosatay bambo asagoo badbaadinayo. waxa uu imaanaya mid dhaqaatiirta ka mid ah waxa uuna ku dhahayaa ninka iskaga tag laba gooraba waa uu dhimanaya. asagana waa uu diidaya waa uuna caawinaya waxa uuna geynaya meeshooda. asagana waa uu badbaadinaya qof kasta oo neefta ku jirto. habeenkii markii uu jawiga degay Desmond waxa uu la fadhiistay Samiiti. aniga waa ka xumahay sida aan kula dhaqmay waxaan kuu maleynaa inaad tahay dabaal. haddii adiga aad i badbaadin lahaydna saacadan waa dhiman lahay. sidoo kalena waxaa naga dhiman lahay dad badan. waxaana kaa raaligelinaya wax kasta oo aan kugu sameeyey. saacadan kadibna aniga waxa ahay dameer. Desmondna waxa uu ku dhahay sidaas ha dhihin. kadibna waxa uu ku dhahay maxaa ku diiday inaad qaadatid qoriga. Desmondna waxa uu ugu sheekeynaya sheekadii bilowgii hore. waxa uu u sheegayaa inuu ku sigtay waagii uu yaray inuu dilo walaalkiisa. kadibna waxa uu u sheegayaa inuu maalin ku taagay aabiisa biskoolad. asagana maalintaas ma dilin laakiin waxaa dilay caqligiisa. maalintaas kadibna waxaa go'aan ku gaaray inaa qaadin qori dambo. meesha qofka dili lahay waxaa go'aansaday inaa badbaadiyo. subaxdiina waxaa soo weeraraya askar tiro badan oo shiinees ah. inkastoo diyaaradaha iyo madaaficda lagu duqeynayo ayaka shiineeska ayaa ka tiro badnaa ayaka waa ayna awoodi waayeen inay jabiyaan. ayakana waxa ay bilaabeen inay gadaal u laabtaan. ayakoo cararaya askar badan ayaa laga dilay waxaana kamid ahay Samiiti. laakiin Desmond ayaa caawinaya asaga. waa uu soo qaadaya waxa uuna ku dhimanaya dhabarkiisa asagoo saaran. markii uu arkay inuu dhintay waxa uu u laabaya indhaha. asagana waxa uu ku soo laabanaya meesha uu dagaalka ka dhacayay. inkastoo meesha ay xureysteen shiineeska asagana aysan jirin qof caawinayso. waqtigaas
markaasna ciidamadii kale waxa ay ku fikirayeen inuu dhintay asaga, halka Desmond uu u laabtay asxaabtiisa dhaawaca ah si uu u badbaadiyo. sidii u socday waxa uu arkay mid dhaawac ah oo rabo in la caawiyo, waxa uu ku duugaya carada waxa uu dul saaraya meedad kale maxaa yeelay Shiineeska ayaa xaggiisa u soo socdo si aysan u arkin. ugu dambeyntiina dhinaciisa ay marayaan laakiin ma arkayaan. kadibna meesha ayuu ka soo saaraya waxa uu ka dejinaya buurta, asagana waxa uu ku soo laabanaya goobta dagaalka. waxa uu arkaya Shiineeska oo leenayo asxaabtiisa intii nooleed oo dhaawaca ah. mar asaga meesha ayuu ku soo laabanaya waa uu soo galaya waxaana arkaya Shiineeska, kadibna xabad ayay ku soo ridayaan, asagana waxa uu ka galaya meel asagoo ay ka cararaya waxa uu galaya godkana waxa uu ku arkaya askari Shiinees ah oo dhaawac ah, asagana waa uu daaweynaya. laakiin askarigii Shiineeska ahay waa uu yaaban yahay, wuu isdhiibay waxa uu sugayay inuu dili doono. kadibna farxad darteed waa uu awoodi waayay xataa inuu u mahad celiyo. kadibna Desmond waxa uu ka soo baxaya godka waxa uu raadinaya qof kale oo dhaawac ah. Desmond habeenkii oo dhan waxa uu badbaadinaya asxaabtiisa, waxa uu ka soo dejinaya buurta. ciidamadii joogay buurta hoosteeda waa ay yaabeen, dhaawacyada sida buurta ugu soo dogooyaan, macquul miya inay Shiineeska sameynayaan sidaas. habeenkii oo dhan asxaabtiisa ayuu badbaadinayay. subaxdii ayaa la gaaraya waxa uu raadinaya qof kale oo badbaadiyo, waxa uu arkaya taliye Hall iyo askari kale oo dhaawac ah. taliyahana waxa uu ku dhahayaa saaxiibka qaad ani hadda awoodidna ii soo laabo. kadibna saaxiibkiis waxa uu geynaya buurta qarkeeda, waxa uu u soo laabanaya taliyaha. markii uu taliyaha soo gaaro mid shiishaan ah ayaa gacanta ugu dhufanaya xabad, asagana wuxuu sameeyay ayuu garan weeyaha. taliyaha ayaa waxa uu ku dhahayaa dhaqaaqsan u ogaado meesha uu joogo shiishaanka. ugu dambeyntiina taliyaha waxa uu dilaya shiishaanka. kadibna askartii Shiineeska ayaa xabadda maqlaysa dhawaaqeeda waa ayna soo aadayaan xaggooda. Desmond taliyaha waxa uu ku jiidaya go waxa uu dilaya taliyaha ciidamadii soo weeraray ee Shiineeska ahay, waxa uu ka dilay ciidamo badan. markii uu buurta soo gaaray waxa uu ku xiray taliyaha xarig, waxa uu ka tuuray buurta. kadibna saaxiibkiis ayuu xarig ku xiray, asagana waa uu isla soo tuuray. ciidamadii Shiineeskana waxa ay bilaabeen inay soo istaagaan buurta qarkeeda, laakiin waxa arkay ciidamadii kale ee hoos joogay, xabad ayayna ood ugu qaadeen. kadibna Desmond waxa uu soo degtay asagoo caadi ah oo soconayo. askartii dhanna waa ay rumaysan weysay inuu asaga sameeyay waxaas oo dhan. kadibna hogaamiye Gulliver ayaa u imaanaya, waxa uu ku dhahayaa adiga waxa sameysay wax aad dhamaanteen sameey weynay, anigana waa ka raali gelinaya sidii xumeed ah kuula dhaqmay markii hore, anakana maanta kadib waa kugu faanayna. midda kale maanta ma ogtiin inay wadankeena ka jiraan abaaro, dadka qaarna abaarta jirta ay laayihiin biyo ay cabaan iyo wax ay cunaan, ramadaanna uu soo dhow yahay. adigana maanta aad ku caawi kartid $0 ama sentiyaal iyo wixii aad awoodid. maantana muhiimadda waa in aad caawisid walaalaha oo adiga kuu baahan. intaan la gaarin ramadaanka waxaa rabnaa inaan aruurino $10,000. muuqaal kastana waa ku dari doonaa insha Allah. lacagtan waxaa ku soo diri kartiin nambarkan hadda meesha ku qoran, xataa sentiyaal waa soo turi kartiin insha Allah, anigana waa gaarsii doonaa. qofkii rabo inuu akoon lacag ku soo diro waxa uu nagala soo xiriiri karaa nambarkan WhatsApp-kiisa. aan ku laabano muuqaalka. ugu dambeyntiina hogaamiye Gulliver waxa uu ku dhahayaa beri waa laazim inaan weerar ku qaadnaa Shiineeska, adigana waxaa rabnaa inaad dagaalka noo raacdid maxaa yeelay waxaa tahay adiga qofka noogu geesisan. bilowgii hore waa ay yeesayeen, hadda laakiin waxa uu u noqday qof ku weyn agtooda oo dhiirigeliya ayaka, la'aantiisna waa ay ogyihiin kalkan inay weynayaan cadad badan oo ayaka ka mid ah. kadibna dagaalka waxa ay ku qaadayaan Shiineeska ilaa markii dambe ciidamada Shiineeska ay ka taagaan calanka nabadda. ciidamada ugu dambeyntii waxa ay ku wareegsanayaan Shiineeska. mid ka mid ah ciidamada Shiineeska ayaa qiyaamaya, waxa uu ku soo tuuraya bambo. Desmond ayaa arkaya, waxa uu darbeynaya bambada meel u dhow asaga ay ku qarxaysaa, asagana waxa uu noqonayaa dhaawac. waxa ayna ahayd markii ugu dambeysay oo Desmond oo badbaadinaya asxaabtiisa. ciidamada Shiineeskana sidaas darteed waa la leenayaa. Desmond waa uu faraxsanaa maxaa yeelay waxa uu dareemay inay guuleysteen ciidamadiisa, asagana waxa uu ka soo baxay mas'uuliyadiisa iyo waajibkiisa wax ka badan. qisadan waa qiso dhab ah oo dhacday. Desmond waxa la siiyay bilad maxaa yeelay 57 askari ayuu badbaadiyay dagaalkii adduunka. filimkan waxa ii qoray Kabtan Maajid, waxaan codeeyay anigoo Cabdulxaliim Cali, waxaan edit gareeyay isla Kabtan Maajid. haddii aad ka heshay fadlan waleysa amran, marka koowaad muuqaalka like saar, YouTube-keena Kabtan Maajidna subscribe saaro si ay ku soo gaaraan muuqaalada maalinlaha ah u soo dhigeyno. filimkan magaciisa waxa la dhahaa Hacksaw Ridge, anigana magacaygu waxa la dhahaa Cabdulxaliim Cali. waa inuu muuqaalkan iyo muuqaalka xigo maca salaama.